موقف كحسب وطني iyo halka uu ka taagan yahay arrimaha korarka qiimaha shidaalka iyo maciishada iyadoo si gaar ah oo hadalkan jawaab ugu yeeshay wasiirka ganacsiga hadlay wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo shalay arrimahan maciishada iyo korarka qiimaha shidaalka hadlay ayaan iyadana rabaa inaan laba saddex xiriir ku raado marka intaan soo dhan gelin waxaan eegi doonaa bal sida maciishadu u korodhay bishii hore iyo imika kororka ku yimi maxay isleeyihiin bishii hore qiimo intuu ahaa imika intuu yahay waxa kale inuu barbar dhigi doonaa sayl meesha uga saarno muranka 5 sano maciishadu intee ahayd مثلا sana 2016 ilaa 2020 celcelis ahaan 5 sano intii ay ahayd maciishadu iyo maanta intay tahay waxa ku kordhay waxaan meesha ka saaraynaa marmarsiyo iyo sababo dhow wasiirku sheegay shalay tusaale ahaan kiilooga bariiski wuxuu kordhay bishii hore intuu ahaa ilaa 8% 5% ilaa 8% inta u dhaxaysa shantii sano ee 2016 ilaa 2020 qiimihii uu ahaa kiilooga bariiski waxa ku kordhay 20% baa ku kordhay litirka batroolka intuu ahaa waxa ku kordhay 15% ama 16% waxa ugu daran baasha la ilaalin saliida cuntada raashinka lagu karsado oo runtii aad iyada loo qaaliyay oo 20% in ka badan intii ahayd bishii hore ay ku kordhay imika shantii sano ee 2016 ilaa 2020 intii ahaydna waxay kordhay 15% daqiiqda ayaa iyaduna aad u kordhay waxa kale oo kordhay qamandiga waa quutal daruuriga baynu ka hadlaynaa 5 sano intii ahayd oo 5 sano 2016 ilaa 2020 waxa ku kordhay 4%. waxa kiilooga qamadiga xogtani waa xogta ay sameeyso hay'adda ka shaqeysa cuntada adduunku oo suuqyo badan oo Soomaaliland si joogto ah u kormeerta usbuucii wasiirku 30 qof bay jooga ummadda reer Soomaaliland way dareentay oo iyada og taa maanta muranka galmeeyay maciishada halkay marayso garowga ayaa isna intuu ahaa bilihii hore 30% kordhay kiilooga garowga ka cilmi jaamaca la yiraahdo intii garanaysa intuu 5 sano hore ahaana waxa ku kordhay 4%. waxa kordhay oo kale galeyda faracda ma hayta kale ayaa iyaduna kiiloogeedu 12% ama ilaa 15% inta u dhaxaysa u kordhay intii uu ahaa shantii sano horena waxa ku kordhay 13%. saacadda wasiir ummadda reer Soomaaliland inta toor fadhiisatay inaad ku tiraado dad baa ay jooga suuq oo may kordhin waxay ku tahay ceeb fadeexad iyo ma garanaysaa hakrashay ku tahay ka xaaladda horta maciishadu waa sida shidaalkan soo noqonaya shidaalku islaftiisu wuxuu ka mid yahay maciishada kordhinaya wasiirku shalay wuxuu yiri waxay ka kordhay qiimihii shidaalka adduunka kordhay waa runta wasiir uu kordhay annaga laakiin reer Soomaaliland kor kala noo dheer oo ka yimi kooto dadban oo shirkadda Trafigura la yiraahdo ugu xidhan hadaatiin xukuumadda Musabbix Cabdi sidee kootadaas u dhacday shirkad la yiraahdo Trafigura oo dalka Switzerland laga leeyahay ayaa sanadkii 2020 xukuumadda Soomaaliland heshiis la gashay heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa in shirkadaasi kayd ka dhigata haamiheena maamulkooda la wareegto dib u casriyeyn iyo ballaadhin ku samayso iyadoo markaa ujeedada laga leeyahay in Itoobiya oo suuq weyn shidaalka aynu ka iibino oo waxa shidaal laga iibino Itoobiya oo halka soo maro ayay ujeedada heshiiska lagu sheegay heshiiska ilaa imika ummadda lama horkeenin baarlamaanku ma ansixin muddo 2 sano waa laga joogaa waxa kale oo markay intaas u dhacday talaabo oo wasiirku qaaday inuu wax ka bedelo nooca darajada shidaalka ee wadanka la keeno oo shidaaladu darajo kala leeyihiin هذا يصيرنا وحلاقو parameters kala duwan مثلا sulfurta maadada la yiraahdo maadada sulfurta la yiraahdo ayaa wuxuu yiri waa inaanay ka badan 500 ppm oo ah halbeega lagu cabiro maadadaasi shidaalka ay ku jiraysaa waa inaan 500 ka badan wixii ka badan marka uu yimaado ayaa laga celinayaa badda haddaba darajada shidaalka ee wasiirkeenu yiri hal la keeno wadanka
wuxuun baa awoodi kara oo qaata darajada Ameerika iyo Yurub innaga wadamada duruufteena oo kala ah ma qaadi karno shidaalka nooca la yiraahdo la keeno dalku waa shidaal ay Ameerika iyo Yurub u qaadi karaan oo innaga taagteena iyo duruufteena midna aan waafaqsanayn shidaalka mercury muxuu ahaa sulfurtiisu hooseyso sulfur oo ilaa 500 ppm ah wixii ka sareeya awal ilaa 1200 ilaa 800 bay ahaan jirtay maadadaasi maxay taasi keenaysaa waxay keenaysaa kow shidaalka dalka la keenayo inuu qaaliyo laba in shirkadihii wadanka laga lahaa oo ilaa 8 ahaa oo shidaalka soo dejin jiray ay ku adkaatay in dalka shidaalka keenaan ibeena shirkadda Trafigura oo shirkadda aan weli heshiiskeeda baarlamaanka la keenin ay si dadban u noqoto shirkadda kaliya ee wadanka shidaalka inta hadday cidi ku kaliyeysatay keenista shidaalkana iyada yeedinaysa qiimo marka wasiirku sidoo kale inuu isagu tayada shidaalka nooca la keenayo gooyo xaq uma laha hay'ad baynu leenahay hay'adda tayada hay'adaas wax kale oo ka ciyaartay ma jirto heshiiskaana weli lama horkeenin golaha baarlamaanka shirkadaasina waxaan ognahay in ciido ka agdhow madaxtooyada ay lu ku leeyihiin muddo 2 sano shirkadda heshiiskeeda wakiilada lama horkeenin wixii heshiiska la sheegay ee la yiri waxbay qabanaysaa waxay ballaarinaysaa haamahana iyadana may sameyn waxa kale oo loo suurtageliyay shirkadda kaydkii haamihii aynu haysanay in iyada looga qoondeeyo xaddi badan oo ay ku kaydsato shidaal dabadeedna shirkadihii kale wadaniinta ay waayaan kow nooca shidaalka keenay la yiri mid aan keen karin baa sheegay haamihiina waxa badankoodii loo xiray shirkadda oo meel ay ku shubtaan baxta haday keenaan ma haystaan waxa weey arinta waxa loo wadaa si dadban in loogu xiro shirkadda waana dhacday qayb weyn baanay ka tahay mas'uuliyadda qiimo kororka wasiirku inuu ka qarsado ma soo hadal qaadin daraad wuxuu soo saaray kaalmaha masaakiinta ay iyagu ma soo dejiyaan shidaal waxa ka soo iibsadaan shirkaddan wixii ay kaga iibsuun bay wax yar saartaa marka kaalmihii waraaq u soo qoray shidaalka inta ku iibiya mar rabo inuu la hadlo shirkadda keenaysa mar rabo dadkii soo dejinayay ee faraha badnaa ee soo dejiyeesha in la furo oo dadka soo dejinaya aanay cid gaar ah xuurto ugu xidhnaan dhowrkii shirkadood 8 keenaan wasiirku qolada la hadli maayo kuwa yarada masaakiinta kaalmaha buu leeyahay hadla qiimuhu gooy waa ku TV-da ka hadlayeen oo arkaysan shalay leeshada qiimo kama soo saaray wasiirku oo mu oran qiimaha ku iibiya sababta uu kaalmaha weeriyay waxa weeyii shirkaddan uu qarinaya meesha ku jirta xaaraanta marka mas'uuliyadda qiimo kororka shidaalka qayb weyn bay ka tahay shirkadaas dadka ku lug talana waa dad madaxtooyada ka agdhow waa dad wasiirka ka agdhow xukuumadda ayaa waxay abuuraysaa jawi ganacsi oo dad gaar ah ku macaasha aqlabiyadii iyo ma garanaysaa ummadii reer Soomaaliland looma danaynayo arrintaasaan halkan soo istaagayaan caday inta wasiirku ka tagay sababta marka qiimo kororka shidaalka adduunka ku yimi laguma qarin karo qiimo kororka ay kootada Trafigura keentay waan ku celinaya qolada kulmiye in badan total bay nagala hadli jireen total shirkad la ilaahay ka hadli jireen Trafigura bay ku soo bedesheen imika Trafigura ayuu ku taasi shidaal walaha may keenin jirin markii hore tan shidaalkiina way keenaysaa haamihiina iyada loo xiray marka shirkadii masaakiinta ah ee dalka ee muwaadiniinta waxay keeni kari waayeen shidaal saacad wasiir adigu xaq uma leedina tayada shidaalka la keenay goyso hay'adda tayada aynu leenahay haddii 2 sano ka hor heshiiska la keenay oo weli baarlamaanka la horgeyn haddii weli aan haamihiin la ballaarin haddii weli shirkadii aanay ganacsi shidaal ka iibin Itoobiya oo waxa dhacday taariikhdeena markii uu horeysay inaga oo bad leh inaynu Itoobiya dib shidaal uga soo iibsano marka Trafigura waxa uu timid dalka in Itoobiya shidaal ka iibso laakiin waxa keentay in Itoobiya inaga dib shidaal looga iibso bad baynu leenahay inta badan wadamada badda leh way ka shidaal jabin kuwa aan bad lahayn waa nasiib daro waxa la mid tahay oo kale waa ogtihiin inagoo bad leh inaynu dib internetka Itoobiya uga soo iibsano wadankan dhibaatooyin oo dhaqaale iyo duulaan baa ku dhacay ummadda reer Soomaaliland badbaadiyaysa tabixin bay u baahantay waxa kale oo wasiirku shalay qirtay oo maalin hore uu hadlay baarlamaanka hortiisa ka hadlay qirtay inaanay xukuumaddiisu waxba ka qaban karin maciishada
iyo qiimo muxuu ahaa ascaarta korodhay shidaalka haddaydan waxba ka qaban karin bikulli ixtiraam u banneeya cid wax ka qaban karta ayaa joogta oo arrintaa xalkeeda haysa haddaydan waxba haddaad ummadda horteeda ka qiratay fashil iyo inaad waxba ka qaban karin u bannee annagaa ka qabanayna xukuumadda xisbiga wadani ayaa diyaara inay ummadda samata bixiso oo ay wax ka qabato halkan waxaan ka soo jeedinayaa markaa xalalka haddii xukuumadda wadani ay timaado amaba ay maanta joogi lahayd mushkiladan oo kale sidee u xalin lahayd banka kow baarlamankana waxaan ugu baaqayaa inuu xalalkaa qaato golaha wakiilada kow in la laalo heshiiska shirkadda Trafigura gabi ahaanba meesha laga saaro maadaama muddo 2 sano ah baarlamankii hore codsaday in la horkeeni waayo kana la horkeeni waayo in guud ahaanba laga saaro meesha baarlamanka marka baarlamanka la horgeeyo haddii la afkarto marka waa laga wada hadli karaa laba in wax ka bedelka darajada ama meerkurida ee aad hoos loogu dhigay laga dhigay Yurub iyo Ameerika nooca shidaalka in la geeyo halkiisii lagu celiyo oo imika 500 bay yiraahdeen ilaa 1200 salfarta heerka salfarta shidaalka ku jirta 500 laga dhigay wasiirku xaq uma laha horta in soo gooyo taa waynu sheegnay hay'adda tayada haydin goyso iyadana in laga dhigay ilaa 1200 ilaa 500 inta u dhaxaysa taasi waxay saamaxaysaa in shirkadaha kala keeni karaan shidaal keeni karaan mid taagteena oo aan dhibaatanayn ugu ahayn oo sideed shirkadooda kale imika suuqa ka baxay in keeni karaan halka imika mid kale ka tahay ay keenaysaa waxa kale oo aan halkan ka soo jeedinay in kaydka haamaha shirkadan Trafigura iyada haamihii oo dhan la siiyay si cadaalad loogu qaybiyo shirkada oo imika way ka yaaceen meel ay wax ku shubtaanba ma haystaan cidaas loo xiray shirkadaas la yiri 6-7 haamadoodun ba wax ku shubanaysa shidaal ay meel geysay Itoobiya ka iibsan ma ogine shidaalkii anaga Itoobiya dib looga iibsan marka in si cadaalad kaydka haamaha shirkadaha loogu qaybiyo cid gaar kaydka loo xirin cashuurta laga qaado shidaalka waxa weey xalalkani haddii xisbiga wadani talada maanta hayn lahaa wuxuu sameyn lahaa in cashuurta laga qaado shidaalka marka koowaad shilinka Soomaaliland lagu qaado sida cashuuraha kale dollar baa lagu qaadaa mar labaad kale in cashuuro badan laga saaro si shidaalka loo jabiyo oo cashuur dhimis loo sameeyo 30%. saddex in gabi ahaanba la laalo miceeshada cashuurta laga qaado gabi ahaanba sonkorta bariiska daqiiqda saliida waxa loo cashuur miceeshada cusub ama waxa la laalo ama 70% meesha laga saaro inta duruufaha jira in gargaar cunto qaybina loo sameeyo dadka danyarta iyadoo la kaashanayo hay'adaha caalamiga sidoo kale xukuumadda waxa jirta kayd cunto hay'adda kaydka cuntada waxa la yiraahdaa jirta maanta loo baahan yahay soo daayay kaydka dadka u qaybiyo dadka shaqaysan leh ee aan raashinka goyn karin bal kaydka aad hayseen u soo daayay dadka iyadana waa talada aan halkan ka hayno waxa kale oo la rabaa dawladdu iyadoo inay wax beerta maaha laakiin waa inay beeraleyda kabto oo ay qalab ku kabto oo ay saacado beero qodisa ku kabto oo shidaalka mararka qaarkood ay kabto waxa kale oo muhiim ah mustaqbalka fog si arrimaha looga baxay dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha iyadoo cashuuraha laga dhimay qalabka wax beerashada iyo arrimaha haddii maanta xukuumadda xisbiga wadani talada hayso talaabooyinkaas ay qaadi lahayd waxbay ka qaban lahayd haddii aydan waxba ka qaban karin marka xukuumaddu waxaan halkan ugu baaqaynaa inay madaxweynaha iyo xukuumaddiisu iscasilaan doorashada soo qadimaan doorashada in hore u soo dhigaan oo qabtaan oo ay u baneeyaan haddaan ay qaban karin ay cid wax ka qaban karta inay u baneeyaan annaga diyaar u ah intaasaan ugu baaqay wasiirka waxaan leeyahay wasiir ummadda reer Soomaaliland baa wasiir u tahay inaad afhayeen ganacsato noqoto oo cid gaar ah u doodo ma naafilay waxa la noo sheegay oo aan maqlay inaad madaxweyne leedahay lagu diyaarinayo inaad madaxweyne ku xigeenka soo socoto noqoto sida ummadda madaxweyne ugu noqon maysid sidaan imika u hadlayso haday hadalka tahay haday naxariis darrada tahay haday tahay dafiraada iyo haday tahay inaad u doodayso dad gaar ah afhayeenba waxaad u noqotay cid gaar ah wasiirnimadii kuma soo dhawaan markaa wasiir waxaan ku leenahay haddaanad ummadda mas'uuliyadii lagu dhiibtay u qaban kareen u banee waxba kama qaban karna markuu wasiirku leeyahay waxa weeye arrintaasi waxay muujinaysaa inuu fashil qirtay waxa weeye arrimaha sababaha qaarna arrimahan maciishada kordhiyay waa kuwa naga baxsan
kuwa sababoodu inaga baxsan yihiin dowladda waajibaadka ee kaalinteedu waxa weeye inay ka shaqayso sidii ay u yareyn lahayd saamaynta qiimo kororku dadka ku keenay haddii cashuurahan la kordhiyo la yareeyo haddii dadka gargaar cunto loo sameeyo kaydka dowladda iyo looga sameeyo hay'adaha waxaasoo dhan waa door dowladeed oo bannaan mana qaban karno buu wasiirku marka inahaasaan halkan u soo istaagay aad iyo aadna ugu xunnahay xukuumadda xisbiga wadaniga waxay diyaar u tahay oo ay diyaar u tahay qorshada ka leedahay sidii qiimo dhimis loogu sameyn lahaa maciishada iyo quutal daruuriga shidaalkuna waa ka mid waxay diyaar u tahay in abuurto jawi ganacsi oo xora oo ummadda ku tartanto cid gaar ah lagu naasluujin cid gaar ah madaxtooyada xiriir la leh inaan lagu naasluujin marka waxaan u soo jeedinayaa golaha wakiiladu inay fadhi degdeg ka yeeshaan iminka markay ku soo noqdaan shaqada oo ay arintan soo farageliyaan dowladaha dadkooda u naxaya dowladaha damqashada leh dowladaha dadkooda matala markay aafadan oo kala dhacdo cashuuraha gebi meesha ka saaran cashuurta shidaalka tamaciishada marka waxay u muuqataa dowladda inaan dadka matalin inaanay dan ka lahayn waxay u muuqdaan niman sii socda oo maalmahooda u dambeeyay ku jira oo sidii caadada ahaan jirtay boob iyo dhac iyo maxaa iga galay arrimaha ku wada marka hay'adaha qaranka iyo waxaan ugu baaqanaa in arrinta ka feejigan yeeshaan in wax laga qabto intaasaan doonayaan halkan ka hadlo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.